daada teenagerku waa xilligan ugu xasuusaa badannahay walow haba ahaadaan kuwada xume waa xilligan ku cusubnahay dunida ismaamulka iyo ismaarinta waa xilligan u naqaano waqtiga istimtaaca iyo baashaalka waana waqtiga aynu dhisno seeska nolosheenna ee afcaasheennu ama qayrkeedna inoo horreysiyaan ama dib inoo dhigaan haddaba waxaan kula wadaagi doonaa 7 qalad oo iga dhacay markii aan daadaas ahaa sidaad adigu wax uga baran karto qodobka koowaad aan bixiyey being introvert ama Soomaalihaan haddaan sidaa u turjub guri joog rag cimrigii waxa uu ku soo bandhigi jiray raganimadiisa goobaha bulshadu isugu timaado iyo fagaarayaasha maaha guryaha iyo qolalka hoostooda waxaana ku jira cilmi oo ninka uu bulshada boos fiican kaga jiro ayuu ka nalal sareeyay waqtigaas waqtigu waa isbedelay balse ilaa hadda laga maarmin baahidii loo qabay social life-ka waxaa jira kuwa tidhaahda your network is your network haddii aan isku dayo inaan u macneeyo intiina aan fahmin waxaa noqonaysaa macaariftaadu waa hantidaada ama waa dhaqaalahaaga oo kale dhaqaalaha la sheegaya wuxuu noqon karaa mid aqooneed iyo cilmi iyo mid hantiyeed anigu waxaan ahaa mid saaxiibo badan aan lahayn waqtiga uu shaqo ama waxbarasho ku maqan yahay maaha inta kale guriga jooga oo mobil iyo game la saaxiiba wax social experience ma lahayn waxaan gaaray heer yani markuu qof meeliga soo baxaan garanayo inaan iska indhatro si aan wax interaction aan oo dhex marin ama salaan haata ama iswaraysi haata dhaqanka noocan wuxuu saameeyay 20 jirkii oo ahaa waqtiga aan aad ugu baahida badan ee social life-ka wuxuu iga dhigay yani mid ka cabsada dad la sheekaysiga ama dad barashada haddaba adigu isku day inaad banaanka u baxdo oo samaysato asxaab iyo biyo yaro kooban iskuna day inaad aado meelaha concert munaasabadaha laga warramayo waxyaalaha adigu jeceshay ama aad xiisiso meesha waxaad kula kulmi doontaa dad kula fikra ama kula aqliyada isku day inaad meesha aanad ka imaan adigoo hal saaxiib ka soo maran qodobka labaad jebinta ballamaha yaryar ee naftaada u qaado maskaxdeenu waa canjalad yar oo kale habay duubtaa kadibna ay ku soo celisaa haddii aad maanta naftaada adigu ballan u qaado oo tiraa waxaan samaynaya ama waxaan qabanaya at the end of the day aanad samayn maskaxdaadu waxay safgaraynaysaa inaad tiri waxaasaan qabanaya laakiinse aanad qaban markaad muddo nooca nolosha ku jirto yani cimrigaagu koro maskaxdaadu way la sii qabsanaysaa inaad tahay qof naftiisa wax ka ballan qaada laakiinse aan oofin markaad xilli aad soo gaadho aad damacdo inaad noloshaada meel gaadhsiiso ama aad waxyaalo badan qabsato maskaxdaadu ma taqaano yani haddii aanad adigu dib xarkaha u furfurin ma taqaano waad isbedeshay ama waqtigaasaa la joogaa keliya waxay soo celcelisaa wixii ay taqaanay oo ah wixii aad tiraa waan qabanayaa subaxda aanad qaban caawana aad gaadho adoon mastale qaban haddaba si aanaynu cimriga 20-yadeena oo ah waqtigaanu bilownay inaynu waxyaalo badan qabsano aanaynu ula dhibaatoon in aynu waxba qaban kari weyno ama aynu goolasheena ka guulgaari weyno waxaad u baahan tahay keliya in aad qorshayaasha aad subaxdaada dhiganayso ama aad maalinkaaga dhiganayso ama aad sanadka dhiganayso ama aad 2 sano dhiganayso inaad yarayso intaad yarayn karto fududaysana haddii aad yarayn kari weydo fududayn kari weydana isku day oo isku qasab inaad hadda qabato ood fuliso haddii kale wax cimrigaaga ku daba yaala oo canjalad ku duuban oo mar walba lagu shido ay noqon doontaa qodobka saddexaad nolosha spotlight-ka maxaan ka wadaa spotlight waa sidii iyadoo lasoo qaaday flash weyn kadibna adoo meel socosaa lagu qabtay da'da 15 ilaa 20 waa da'dan ku noolnahay noloshaas anigu markaan da'da ahaa 15 jirka da'dii aadkaygu badnayd bahayd waliba da'dii 17 jir ilaa 19 jir waqtigan aad uga fikiri jiray markaan xidhanahay timahayga hebel maxaa looga fikiraya xataa su'aal haddaan sidaa sheeg aan ka fikiri jiray dadka oo dhan baa ku sheegay maxaa loo malin doonaa waxaad leedahay aan ka cabsan jirin in idhaahdo laakiinse at the end of the day yani waxaad baran doontaa haddaad inta aad yar tahay inta aad 15 ka tahay aad isku sheegin taan waqti badan kaa lumin marka da'da 20 soo gaadha qasab waxaad ku baran doontaa inaanu qofna ka hergaraynin waxaad tahay waxaad qabato iyo waxaad fasho mid toona waxaa qof walba mashquuliyey tiisa qodobka afraad waa qodob aan anigu kala taliyo dadka inta isku xeeranaya ama sheeko wadaagtina in wax isdhaafsano waa qodob ay raggu waqtigooga kiisa ugu badan ku lumiyaan uguna xun waxaa waaye hasaawaha ama shukaansiga hadba kaad taqaano
xaqiiqadan iga qaado boqolkiiba 85 xidhiidhada aan sanadka u horreeyay guul isku bedelin way guul daraystaan adigu si haddaba isweydii sanad gudihii diyaar guur ma u tahay 15 baad tahay 17 baad tahay ama 19 20 18 anything 15 ilaa 20 waqtiga ay ugu yar tahay yani inay dhalinyartu ku guursadaan 25 wixii ka sarreeya ay dhalinta guursataa ugu badan tahay so haddaba maanta adigu hal sano ilaa 5 sano gudahood diyaar uma tihin mana jirto inan ku sugaysa 5 sano ama 6 sano ee u diyaar garowso guur so su'aalaan ku weydiiyey maxaad waqtiga u luminaysaa sanad dhan oo everyday qof 3 saac la sheekaysanayso 1 saac ilaa 3 saac why haddii aad adigu hore xidhiidh u gelin isweydii intii aad waqti ku lumin lahayd shukaansi iyo sheeko maalinkii haddaad halkaas saac 1 saac ilaa 3 saac baa ku luma dad 1 saac oo ka mid ah yani aad iska cusub ku barato ama aad iska sii shaarbangarayso noloshu sii noqon doonta sanad ama 2 sano haddii saad hore xidhiidh u soo gashay waxaan hubaa inaad xaqiiqsan doonto xidhiidh kalood maanta gashaa inuu noqon doono waqti lumiska kii ugu weynaa ee cimrigaaga ka shalin doonto qodobka shanaad waa qodob da'da 15 ilaa 20 si dhalinyartu ay aad iyo aad ugu badan waana qodob haddii aad samayso yani ama xaaladdaa ku nooshay aad tahay total failure ilaahay wuxuu inaga dhigay dad muslima islaamnimadeena shardigeena kuwaad waxaa waaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ilaahayna naqirno nabi maxamedna rasuulkiisa iyo addoonkiisa inuu naqirno after that shardiga labaadi waxaa waaye salaadu waa albaabka adiga iyo rabbiga idin dhexeeya so haddii hamigaagu yahay adduun iyo aakhiraba inaad qayrka wax la qaybsato ama aad ka sarrayso isku day albaabka adiga iyo rabbiga idin dhexeeya mar walba inuu furnaado baro salaada qaabka loo tukado baro salaadaada mar walba isku day sax laakiinse kow tuko inta aad aqoon leedahay aqoonta u ogtahayna ku tuko mar walbana isku day inaad kordhiso cilmiga iyo aqoonta aad u leedahay tukashada salaada ilaahay shanta salaadood haddaad si fiican u tukatana waxaan rajaynayaa intaas noloshaada wax badan ka bedeli doonto qodobka lixaad is-actabinta ama ismahadinta fidrada bini'aadanka ayaa abuuran markay guul yar gaadho inay yani kala badbadato oo kibir la timaado marka ay wax yar inoo suurto galaan ama aynu guul yar gaadhno waxaynu eegnaa inta inaga hooseyso nidhahnaa hebeleeg waxbarashaduu ka saaqday laakiin waxbarashadii baan ku dadaalay hebeleeg waxama qabto iska fadhiya gurigu iska fadhiya laakiin waa shaqaystaa yani waa halkii ay ahayd ka dhalinyaro ahaan maanta inaad eegto qofka kaa sarreeya aynu waxaynu eegnaa ka inaga hooseeya ka inaga hooseeya markaynu eegnana waa pointka ay ka bilowmato horumarka noloshu inuu istaago waayo you are just focusing distanceka adiga iyo kaydii dhexeeya laakiin kama fikiraysid distanceka iyo adiga iyo kaa sarreeyadii dhexeeya si aad kaa u gaadhana tallaabooyinka aad qaadaysaa intay yihiin haddaba iska jir inaad fiiriso kaa hooseeya kaa liitaa isha waxaad ku haysaa kuwa kaa sarreeya kuna xisaabtan kuwa ilaahayna waxa uu inagu imtixaani doonaa waa guulaheena daba guulaheena miyaynu ku kibri doonaa oo kuwa inaga hooseeyan hoos u eegi doonaa mise kuwa inaga sarreeyanu eegi doonaayo hore nolosha u sii socon doonaa qodobka toddobaad ugu dambeeya waxaa waaye unconsistent oo soomaaliya ku noqonaysa wax joogteen la'aanta waxaa ugu weynaya markaynu cimrigeena dib u eegno ama aynu dhalleecno waxaa aynu ka qoomamayno waxaa waaye shay aynu bilownay ama shaqo aynu bilownay oonaynu ka gaarin ama aanaynu xaggan joogteen lahayn aanaynu joogteen wax joogtiintu waa qaab ka mid ah caadooyin qofka bini'aadankiina isbaro shay inaad joogtayso yani maxsuulka ama waxa ka soo baxaya wuxuu doona ahaada shayga inaad joogtaysaa oo wax bini'aadanku isbaro waana sida snowfallka oo kale snowfallku yani waa shay wax yar ka bilooma laakiin mar kastood sii wado eed sii rogrogto sii kordhaya ilaa heer weynaado maanta tusaale ahaan adigu maanta jim haddaad aado maalinka koowaad ilaa wiilka koowaad jirkaaga wax isbedela kulma maayo laakiin waxaa hubaala 365 cisho sanadka ah markaad tagto ama bila markaad aado in jirkaaga isbedel ku imaanayo sidoo kale hal biijood maanta akhrido aqoonyaha ku noqon maysid kuna caqli badan maysid waxna ku faa'iidi maysid laakiinse haddaad joogtiso 365 cisho maalinkii koowaad maanta ayaad ka caqli badnaan doontaa ama aad ka garab badnaan doontaa 100 jeer dadka inta overthinkers ah waxaa la sheegaa in dhibaatada iyo cilada haysata ay yihiin ka fikirka shay haddii ay qaban lahaayeen ama ay samayn lahaayeen ama ay yani all in noqon lahaayeen shayga waxa awoodey hayeen gelin lahaayeen yani maxsuulku muxuu noqon lahaa su'aal ahaan waxaad istiriyay ganacsi bilow ganacsigii waad yar bilowday haddana waad ka hadhay waxaad isweydiin doontaa inuu ganacsiga haddaad saa samayn lahayd yani waxyaalaha uu kaa baahan yahay aad u dhammaystiri lahayd talo ma ku guulaysan lahayd talo ma ku guuldaraysan lahayd yani
aad baad isku weydiin doontaa yani overthinking buu kaa dhigay inaad mar walba ka fikirto shaygan talo muxuu guuleysan lahayd talo ku guuldareysan lahayd talo muxuu maxsuulku noqon lahaa haddaba si maskaxdaadu mar walba firaaqo kugu ahaato oo ay adiga kugu helanaato in waxyaalaha aad ugu baahantay ee kuu qabato isku day buugaad furto ilaa aad halka kale ka gaadho mooye inaanad xidhin toddobadii khalad aan igu sameeyey da'dayda 18 jirka ilaa 20 jirkaygii waxaan rajaynaya in wuxuu kaaga bixin haddaad wax ka faa'iiday ha iloobin inaad muuqaalka like saarto channelkana subscribe tira gambalelkana furato si muuqaalada cusub ee self improvementka ah ee kusoo dhignaa aanay ku dhaafin. Mac salaama.